injiilka dhexdiisa yeshuuca wuxuu sharaxayaa masalkii beerlayda. ereyga boqortooyada waxaa lagu beera qalbiyada dadka, laakiin dadka waxay ka bixiyeen jawaabo kala duwan. qaarkood way diideen ereyga, qaarkood way ka noqdeen marka aad adis yimaado, qaarkoodna jaceylka dunida ayaa eejiya ereyga, laakiin qaar maqla oo aqbala oo miido dala. laakiin waa maxay ereygan boqortooyada ilaah ee yeshuuca baray? waa maxay warka wanaagsan ee uu ku dhawaaqay? waa maxay injiilku? muslimiintu waxay yidhaahdeen injiilku waa kitaab la siiyey ciise, laakiin tani ma aha injiilka. injiilku wuxuu ka dhigan yahay war wanaagsan. waa warka wanaagsan ee ku saabsan boqorka masiixa ee muddo dheer la sugayey, kaasoo u yimid inuu badbaadiyo dunida. kitaabkii towraad iyo zabuura dhexdiisa ilaah wuxuu ballanqaaday in asaga gudiisu dunida u iman doono si uu u badbaadiyo dadkiisa una hukumo adowgiisa. boqortooyada ilaah waxay iman doontaa marka boqorkii yimaado. yeshuuca waxaa dhammaystirka ballankaas hore ee ilaah u sameeyey nebiyadii hore. waxa yeshuuca gudiisu yidhi sida u qoray rasuulka matayos oo isna markhaati ahaa. yeshuuca wuxuu yidhi, wakhtigii way dhammaaday, boqortooyada ilaahna waa dhowdahay, toobadkeenka oo rumaysta injiilka. marka yeshuuca wuxuu yidhi, wakhtigii way dhammaaday, boqortooyada ilaah waa timid, toobadkeenka oo rumaysta warka wanaagsan. haddaba waa maxay injiilka? injiilku waa warka wanaagsan ee sheegaya in yeshuuca masiixa dunida u yimid inuu badbaadiyo dadkiisa xukunka ilaah. laakiin sidee ayuu taas u sameeyey? marka hore yeshuuca wuxuu dadkiisa siiyey xaqnimada ilaah hadiyad ahaan. qof walba wuu jeebiyey sharciga ilaah. diin ama amal wanaagsan midna kama dhigi karo qof xaq ah ilaah hortiisa. taas awgeed yeshuuca wuxuu si kumaan u adeecay sharcigii ilaah ee muuse la siiyey. sidaas darteed wuxuu siin karaa xaqnimadiisa dadka dembiilayaasha ah ee asaga rumaysta. marka labaad, yeshuuca wuxuu u yimid inuu bixiyo dembiga. dembigu waa ina la bixiyo. toobad keliya mar tirtiri karto dembiga ilaah hortiisa. cadaaladda ilaahay waxay u baahan tahay iqaab dembi kaste. sidaas darteed isku talabta dusheeda dembiyadii dadkiisa waxaa lagu saaray yeshuuca. asaga wuxuu qaatay meeshoodii, wuxuuna qaatay iqaabta ay ayaga u mudnayeen. haddaba sidee baad u gelin kartaa boqortooyada ilaah? yeshuuca wuxuu bixiyey amar fudud: toobadkeen oo rumaysto warka wanaagsan. haddii aad rumaysato rabbiga yeshuuca masiix, wuxuu ku siin doonaa xaqnimadiisa, wuxuuna qaadanayaa dembiyadaada asaga dushiisa. sidaas dembiyadaada waa la bixiyey, adiguna waxaad dib ula heshinaysaa ilaah.